waddanka Soomaaliya la dhahayo maalin walba waxa ka maqlaysaa sheekooyin mucjisa ah. Hadda sheekada waxay maraysaa inuu madaxweynaha uu Turkiga u tago oo heshiis la galo oo markaas heshiiskaas waxa weeye inay Turkida hubkooda iyo diyaaradahooda iyo gantaaladooda ee dalka Soomaaliya ay keensadaan ku tijaabiyaan. yaa saas bay sheekada maraysaa. wax propaganda iyo wax been oo la sheegay ma yaa sheekada tana article kan baa xaqiijinaya yaa soo jidaan linkii hoos ugu jira idinka hadda rabtaan idinka ku arkartaan. Markaasbuu hore waxaan dawladda ku sheegaa waxa weeye heshiis bay la galeen Turkida. marka heshiiskaas waxa weeye Turkida hubabkii soo alifaan gantaaladii soo alifaan diyaaradaha iyo dayax-gacmeedka ay soo alifaan in la keeno Soomaaliya oo Soomaaliya lagu tijaabiyo dhulka Soomaaliya lagu tijaabiyo. waxaan wax la mid ah adduunka lama soo marin loomana arkin waa arin Damiir maxaa meesha ugu dambeysay. marka dadkan oo Turkida lama rabaan waxaas qashinka oo soo daadanaya inay dhulka ku tijaabiyaan laakiin Soomaaliya la keenayo oo lagu tijaabinaya. maanta waxa weeye dadkan madaxa laga dhiganayo waa Damiir laawayaal kaligood inay noolaadaan bay rabaan muujidaan. marka maanta Soomaaliya lagu talgalsaas inay Turki idinku tijaabiyaan gantaalo iyo diyaarado iyo dayax-gacmeed korkiin ku tijaabiyaan. saas lagu talgalo. marka baashaan waxa weeye Turkida waxaan tradition mala hadday bilaabayaan hadday cilmi hadday barbaranayaan. marka baashaan hadday lunto hadday ka baxdo kontroolka dadkii bay ku dhaci kartaa. hadda ka soo qaad adigoo banaanka iska fadhiyo oo caweynayo oo shacabaya oo adduunka la socon waxa weeye gantaal korkaaga imaan karaa xaafadoo dhan dhulka la simi karaa. saas lagu talgalo. hadda intaas kaliya maaha waxaan dayax-gacmeedka iyo diyaaradaha cusub ay soo alifayaan oo Soomaaliya lagu tijaabin doono. hadda ka soo qaad guriga leedahay oo dadaal badan u soo martay oo lacag badan ay gelisay waxaas isku dhici karaan hub habeen ama maalin cadde iyadoo ah oo dadkiina waxa weeye halkaas ku jirayna ee qaarkood ay dhuman karaan. taasna lagu talgalo. haddana waxa weeye waxaan dayax-gacmeedyada la dhahayo waxa weeye hadday kontrool ka baxdo waxa weeye si xawli bay ku socdaan meesha ku dhacdo waxa weeye xaafado dhan bay dhulka la simi kartaa soo jidaan. marka saas kala Soomaaliya ka dhici karta. marka saas lagu talgalo. marka maanta heshiiskan oo inta ku jidaan waxa weeye dadka maanta laga dhiganayo uma qalmaan suudiga loo dhiibanayo wax la mid ah heshiiskan wax la mid ah adduunka uma arkin. waa ka Xasan Sheekh Damiir laawi waa kaasa tuutay wadamada kale u dhahay aryaada kale unu ka dhuleedanahay kale ku tijaabiyo Afrikaan qiimo lahayn inta joogo ku tijaabiyo wax. sheekada saas bay maraysaa. hadda wax propaganda been la dhahay maaha. waa taas article-kii idin ugu jidaan linkigiina hoos ugu jira waxa weeye iniga la soo arkartaan. marka sheekadan waxa weeye dadka oo waxaan falaaqeynaa oo baraha bulshada ku jira waa dhaaftay sheekadan. marka arrintan waxa weeye waa qayl dhaamin way Soomaaliya saas lagu talgalo. hubka oo iyo gantaalada lagu tijaabin doono Soomaaliya waa arrin udur iyo balaayo soo siyaadin doonto way Soomaaliya. waxaas wax la iska dhahay maaha. sheekooyinka xaqiijinaya dhibaatadaas oo adduunweynaha kale lagu soo arkay linkigooda hoos ku jiraan idinka indiin ku arkartaan. hadda ka soo qaad Mareykanka kale markay hub soo alifaan dhulka oo dadka cadaanka degan yihiin waa laga ilaaliyaa in lagu tijaabiyo hubkaas. waxaa lagu tijaabiyaa meelay degan yihiin madowga iyo latinoga iyo albesteenka dhulka u badan yihiin baa lagu tijaabiyaa. hadda ka soo qaad sheekadan oo inta ku jiraan waxa weeye dowladda Mareykanka baa hub ku tijaabin jireen meeshan Puerto Rico waxa weeye jasiirada leeyihiin ayaga. marka Puerto Rico waxa weeye hubkaas oo meeshaas lagu tijaabin jiray waxay sababtay inay hawadii wasaqowdo dhulka wasaqowdo biyihii dadka cabeen wasaqowdo oo kiimiko galo. marka saas waxay keentay dadkii inay cancer badan ku dhaco. marka saas waxa weeye dowladda markay ogaatay inay waxay sameynayaan oo hubka lagu tijaabinayo dhibaatada markay arkeen 2001 bay joojiyeen. laakiinse kiimikadii dhulka bay gashay. dadkii baa maanta cancerkii ku dhacaya wali caruur buu ku dhacaya wali cancer aad iyo aad u fara badan baa dadka ku dhacaya. taas waxaa keentay meeshaas hubka lagu tijaabinayo. haddana kan sheekadan u fiirsado si inta ku jidaan nin baa inta lagu wareysanaya ninkan waa nin albesteen soo jidaan. marka waxa weeye reerkooda u degnaan jireen meel oo hubka lagu tijaabin jiray bay degan wali ugu degan yihiin soo jidaan. marka inta ku jidaan ninkan waxa weeye reerkiisa si u badan yihiin cancer baa ku dhacay. hadda soo jidin aabihiis cancer buu dhintay hooyadiis cancer buu dhimatay walaalkiis cancer buu dhimatay walaashiis cancer buu dhimatay soo jidaan. asaga laftigiisa loo sanay cancer baa ku dhacay. marka waa kaas taas waxa weeye waxa keentay
hubka meesha lagu tijaabinaya baa sababta yaa marka maanta Soomaaliya waa kamba madaxweynihii ninka ahaa dhahaya kale aryaada kale kula idin hayna inta tijaabiyo hubka saasa maraysa Damiir Maxamudaas yaa walba ka waran waxaas yaa wala maanta waxa weeye wadankan wax walba oo la yaabo waa lagu arkaya wax walba la yaabo yaa siyaasi oo Damiir laawa oo hunguri wixiisa yaa wadankan la haray